بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعشركي لباتن إيا لبات كتابكي المقدمة الحضرمية فقه مذهبك إمام الشافعي كورما إمام بافضله الله يقاني عشركي نوحو كبلابانا يا شروط ay leedahay markii salaada la isku jamaacayanayo shuruudda la iska rabo ayaan maanta ka bilaabana casharkeena faslun fi ma yuctabaru bacda tawafuri shuruudi asaabiqa markii shuruuddii soo hormartay ay dhammaystiranta kabacdi iyo sifaadkii soo hormaray shuruudda kale oo la iska rabo ayaan ka hadlaynaa yushtaradu waxaa la shardiyaa lisixati aljamaacati jamaacada ansixideeda waxaa loo shardiyaa 7 shuruudin shuruud oo 7 ah ayaa la shardiyaa alawalu shardiga koobaad allaa yataqadama ma'muumkii waa inuusan hormarin calaa imaamihi imaamkiisa waa inuusan ka hormarin haye bicaqibihi ciribtiisa inuusan kala hormarin marka meelaha laga fiirinayo ka hormarka lagu sheegaya maalan markii ay taagan yihiin oo kale bicaqibihi ciribtiisa waa inuusan kala hormarinoo oo ciribtiisa waa ciribta imaamku waa inay ama siman yihiin ugu yaraan ama ma'muumka ciribtiisu ay dambaysaa aw bialyatayhi labadiisa bariyood waa inuusan kala hormarin in sallaa haddii uu tukanayo qaacidan xaaluya kii fadhiya hadday fadhi ku tukanayaan oo kale ama ay fadhiyaan barida waa inuusan kala hormarin aw bijanbihi dhinaciisa waa inuusan kala hormarin in sallaa haddii uu tukanayo mudajican asoo jiifa maalan ba waaba xanuunsan yihiin oo kale kasoo qaad aw bira'sihi madaxiisa waa inuusan kala hormarin in kaana mustalqiyan gadicad hadduu u jiifo dadkii maalan ba xanuunsanaayo sidii duruufta u qabata u tukanayo oo kale waa inaysan gadicad hadday u jiifaan madaxa oo ay salaada isku xirtaan waa inuusan madaxa kala hormarin fa in saawaa ma'muumkii hadduu la sinmo hu imaamkii ciribtii kula sinmo marka maalan markay taagan yihiin kuriha waa la kahdaa waa laga fiican yahi inuu kadib maraa fiican wayundaba waxaana la sunaya takhalufuhu ma'muumka dib dhicidiisa canhu can ilimaami imaamka uu ka dib dhaco qaliilan wax yar si martabada imaamka loo muujiyo wayaqifu dakaru ninkii waa istaagaa can yamiinihi imaamka midigtiisa haddii imaam iyo ma'muum kaliya ay yihiin oo laba qof yihiin ma'muumka wuxuu istaagayaa midigta imaamka ayuu istaagayaa uma fain jaa hadduu yimaado aakharu nin kale oo saddexaada yimid ayuu laba qof tukanaysa fa can yasaarihi fayaqifu waa istaagaa can yasaarihi bidixdiisa ayuu istaagaa imaamka bidixdiisa markay saa u kale istaagaan oo midna midig ka taagan yahay midna bidix ka taagan yahay uma markaa bacdigeed yataqadamu limaamu imaamka ayaa horay u baxa laba tilaabuu qaadaa aw amase yata'akharaani labadooda gadaal u baxa wahuwa ta'ahurkaas ayaana afdalu fiican oo inay gadaal u baxaana fiican laakiin meeshaas maxaa muhima masale aada u muhiimah a jirto la iska fiiriyo markii imaamka uu hore u baxayo waa inuusan laba tilaabo ka badan qaadin oo isku xigta haddii kale waa inuu kala googooyaa haddii uu gadaal ay u baxayaan ma'muumyaduna waa inaysan laba tilaabo isku xigta ka badan qaadin laakiin dadka maanta waxa weye jahli badana jiro fiqigii laga jaahil yahay axkaamtii salaado 3-4 tilaabay sii qaadayaan salaaduna waa ku jabaysaa waxaas wahuwa afdalu ta'ahurka inay labadood dib u baxaan aana fiican uu yidhi fadli badan walow xadara hadday soo xaadiraan oo marka horeba joogaan dakaraani laba nin oo laba nin oo ma'muumyaha joogaya imaamkii safaa way saftaan khalfahu imaamka gadaalkiisay saftaan oo istaagaan wakadaa waxaa sidaasoo kale gadaal istaaga almar'atu haweeneydii nin iyo haweeney xaaskiisa maalan isku jamaacaysanayo ama waalidkiis ama walaashiis gadaalay istaagaysaa gabadhu aween niswatu dumarkii faraha badnaa oo waxa weeye dumar fara badan haddii ay nin ku jamaacaysanayaan oo kale waxa weeye dhowr gabdhood oo kula dhalatay walaashaad iyo kuwa dhashay iyo dad adig dumar kugu jamaacaysanaya gadaal inay istaagaan weeye waayahay wayaqifu waa u istaagaa khalfahu imaamka gadaalkiisa waxaa istaaga alrijaalu raggii badnaa rag badan hadday yihiin jamaacadu imaamka gadaashiisa istaagaana lama sinmaan uma markaa bacdigeed asibyaanu ilmihii yaraa ayaa gadaashiisa istaaga caruurta yaryarka ahaa goorma caruurta yararka gadaal istaagoonoo ragga waaweyn ka dambeeyaan in lam yasbiquu ilmaha yaryare haddaysa soo hormarin ila safi safka haddaysa usoo hormarin alawali ee horeeyey oo ilmaha yararka marka hore hadday yimaadaan ee safka hore degaan
ama safka kaa horeeya ay fadhiistaan kama kici kartid oo malihi dadka waaweyn soo hormariya, ayaga markaas u xaqu leh. fain sabaquu haddii ay soo hormaraan ilmaha yararka ah oo ilayhi ila safi lawali safka hore hadday usoo hormaraan fahum ilmihii yaryaraaya axaqu mudan bihi bisafi lawali mudan oo min arijaali dadka ragga waaweyn ka mudan, ayaga ka mid ah oo markaas ka mudan. uma markaa bacdigeed annisaa-u dumarkii ayaa gadaal istaaga, macnaha ragga waaweyna istaaga gadaal, ilmihii yaryaraaya ku xigsada haddaysa soo hormarin, dumarkii ayaa ku xigsada. wataqifu waa ay istaagtaa, dumarka li hadday yihiin ka waran waxaa tukana, wataqifu way istaagtaa imaamatuhunna gabdhihii badnaa imaamkooda oo gabadha ayaga gabare hadday tukinayso wastahunna dhexdooda ayay istaagtaa, saasa sunna oo gabdhihii hadday keligood tukanayaan oo mid ayaga ka mida salaada bixinayso dhexda inay ka istaagtaa sunna ah. wa imaamu lcuraati imaamkii dadka qaqaawana waa istaagaa hayru lmastuuri ee aan la asturin wastahum dhexdooda. kasoo qaad dadaan dhar haysanaaba isku jamaacaysanaya oo wax arkaya, imaamkii macaa kulligood waa wada qaawan yihiin, dhar ma haystaanba, waxaa dhici karta xabsi ku jiraan, meel kale ku jiraan, wax duruuf inay ku keentaa dhici karta. imaamkoodu dhexda ayuu istaagaa, wayaqifuuna safan waaxidan in amkanaa lianlaa yandura bacduhum ilaa cawrati bacd fain kaanuu cumyan aw fii dulmatin taqadama imaamuhu. hadday indhalaa yihiin lakiin mugdi ku jiraan imaamka hormaro le. wayukrahu waxaa la kahdaa wuquufuhu ma'muumka istaagidiisa ayaa la kahdaa munfaridan asoo keligiisa uu istaago can isafi safkii ka keligiisa. in ma'muumka keligiisa meel gooniya uu istaago, maalan saf horaa inta buuxsamo keligiisa gadaal istaaga ma fiicna. fain lam yajid haddii uusa helayn sacatan meel u dhiganta oo meel ballaaran waasacnimo oo ku filan hadduusa helayn axrama waa uu xirtaa keligiisa ayuu gadaal xirtaa. uma markaa bacdigeed jara waa soo jiitaa waaxidan qof ayuu soo jiitaa, qof ayuu soo jiidanaya markaas waa sunna inuu qof soo jiito inta gadaal istaago. waayahay wayundab waxaa la sunneeyaa an yusaacidahu ma'muumkaas oo jaariga ah wax soo jiitay inuu caawiyo almajruuru kan la soo jiidana inuu caawiyo liyanaala fadla mucaawanati cala albiri waataqwa wadalika yucaadilu fadiilata maa faata calayhi min asafi. caawimaadaas uu caawiyey uuna ka helaya ajarkeedii waxaa u dhigmaya macnaha ajarka uu ka helaya a u dhigma ajarkii safka horena. waaye caawimaada ajar gooniya le jamaacadiina wuuba helaya. marka laakiin waxaa muhima qofkaas lasoo jiidaya inuu axkaamtii salaada ilaaliyo, dadka qeyb ka mida 3-4 tilaabo hadday qaadaan oo isku xugegta khatar way salaadii ka jabaysa. shardiga koobaad marka kaasuu ahayo inuu imaamka usa ka hormarinay ahayd. shardiga labaad oo 7 shuruuda ka mid a ashardu thaani shardiga labaad an yaclama ma'muumku inuu ogyahay weye biintiqaalaati imaamihi imaamkiisa guurguurkiisa uu ogyahay oo la socdo suu ogaa karaa imaamka guurguurkiisa. imaamka dhaqdhaqaaqiisa o dhan waa ina la socotaa see ku ogaa karaa biru'yatin aragti imaamkiiba ujeedaa ama wuxuu ujeedaa ma'muumiinta safka ah oo imaamkii la socda qeyb ka miduu ujeedaa aw amase bisamaaci naxwi sawtin dhawaqii wixii lamid a ayuu maqlayaaho ama imaamka codkiisuu maqlayaa amase qof kaloo dhex taagan oo mubaliqa walow min mubaliqin uu yihi midkii gaarsiinayay haba ka maqlee waa inuu cod maqlayaa si ula socdo imaamka. wakaas ashardu shardiga athaalithu saddexaad an yajtamica inay kulmaan weeye imaamkii ma'muumku fii masjid inay ku kulmaan weeye wain bacudad haba fogaato almasaafatu masaafada isu jiraan dhulka isu jiraan haba fogaato waxaalad haba kala teedo alabniyatu dhisasyaal haba kala teedeen waugliqa haba la xiro albaab haba la xiree waa in oo masjid ay ku kulmaan. haddii marka masjid ay tahay meesha ku wada tukanayaan haba kala fogaadeen, dhismayaal haba dhex mareen, albaab ha xiran yahay, dhib male hadday meesha masjid tahay. bishardi imkaani lmuruuri marka fii masjidin aw masaajida tanaafadat abwaabuha wain kaanat muqlaqatan gayra musamara aw infarada kulu masjidin biimaami wamuadin. markaas wuxuu yihi waa la isku daysa karaa bishardi imkaani lmuruuri shardiguu yihi maritaanka suurtagalnimadkiisa waa inuu macnaha shardigeeda lala qabo yiri waa shardi min kulin minha ila alaakhari liannaha xiinaidin kalbinaa ilwaaxidi bikhilaafi ma ida kaana fii binaa'in laa yanfudu kaan sumira baabuhu wakasadxihi aladii laysa lahu marqaa.
fain kaana lahu marqa min khaarijihi aw xaala bayna jaanibayhi aw bayna almasaajidi almadkuuri nahrun aw طariiqun qadiimun bian sabaqa wujuudahu aw wujuudaha falaa tasixu lqudwatu xiinaidin maca bucdi lmasaafati aw ilxaylulati alaatiyati. waayah marka hadday masjid ku jiraan in oo isgaari karaan oo imkaanu lmuruur bisa shardiya. fain kaana imaamkii maamuumka haddii ay yihiin fii gayri masjidin masjid meelo ahayn waaba dhul banaan ama guryo meelo kala weeye ushturida waxaa la shardiyaa anlaa yakuuna inuusa ahaanin baynahumaa imaamkii maamuumka dhexdooda inuusa ahaanin iyo wa bayna kuli safayni laba safoo kastaba dhexdooda waa inuusa ahaanin akharu wax ka badan min 300 diraacin dhudhunyaal oo 300 ka badan taqriiban ee dhadhowaashaha 300 oo dhadhow hadday laba dhudhun dheeraato iyo dhib ma leh iyo 3 marka falaa yaduru dhib male ziyaadatu 3 adrucin 3 dhudhun dheeraadkeedu dhib male. marka haddii ay meeshu banaan tahay waa in imaamka iyo safka ku xiga ama safba safkiisa kale waa inaysan 300 oo dhudhun u kala fogeyn yiri markaas. walaa yakuuna haddana waa inuusa ahaanin baynahumaa dhexdooda jidaarun derbi inuusa ka dhexayn aw baabun albaab inuusa ka dhexayn muqlaqun la xiray aw marduudun la laabay oo la celiyey lama ogola inuu ka dhexeeyo albaab xiran ama albaab ceshan aw shubaakun daaqadi waa inaysan ka dhexayn. waxaasoo dhan waa in ay tahay meel su furan isu gudbi karaan. walaa yaduru dhib male takhallulu shaarici albaabkii kala dhexgelidiisa wadadii kala dhexgelideeda iyo wanahri webigii kala dhexgelidiisa alkabiiri weynaa dhib maleh oo isagoo wada udhexayso ayay halkaas iskaga xiro karaan ama webi uu udhexeeyo. walalbaxri walaa takhallul baxri badii kala dhexgelideedana dhib maleh bayna safiinatayni laba safiinood laba doonood dhexdood ay kala dhex gasho oo waxa weye laba doonood oo is ag taagan oo badi udhaxayso ayaa macnaha ay ku kala jiraan imaamkii maamuumka ayuu labada doonood ku kala jiray isku xiro karaan hadday isu jeedaan hadha suuragal tahay. waidaa waqafa hadduu istaaga axaduhumaa imaamkii maamuumkii midkood fii suflin meel hoose wal aakharu kan kalena fii culuwin meel sare uu istaaga ushturida waxaa la shardiyaa muxaadaatu axadihimaa labadooda midkood qaabilidiisa ayaa la shardiyaa al aakhara kan kale uu qaabilo meesha haddaysan masjid ahayn oo kale iyo wuxuu leeyahy buurihii waxaa shardiya hadday kala sareeyaan midka hoose inuu qaabilo midka saree midkood midka kale inuu qaabilo ku adayn bian yuxaadiya ra'su lasfali qadama alaclaa uu leeyahy waa in midka hoose madaxiisa uu ku aadan yahay kan hoose cagihiisa wailaa lam yucaddaa mujtamicayni laguma tiriyo laba kulmo. masaladan waa laga xoog badan yahay. wuxuu yihi ibnu xajar wayuctabaru gayru lmuctadili bilmuctadil kii aan toosnayna waxaa looga qiyaas qaataa qofka toosan wahada daciifu khilaafa lijamcin mutaakhiriin. masaladan waa daciif oo culamada mutaakhiriin qeyb ka mid ah qaba wain tabicahum lmusanif walmuctamadu ana dalika laysa bishard shardi maa in isku aadaan. waa ka tagna wuxuu yihi walow kaana alimaamu imaamka hadduu yahay fi lmasjidi masjid uu ku jiraa walma'muumu ma'muumkiina khaarijahu masaajidka banaankiisuu joogaa. hadda masjida annaga ka hadlayna meelaha mawlacyadoo la kiraysto dadkii qurbahayo masjid maahan kuwaasi haddaysa ahayn meel masjid loo waqfay. fathalaathu miatin 300 maxsuubatun mid la xisaabaya weeye 300 waa la xisaabaya ama fa300 diraacin fa300 oo nushadan qorta daarulminhaajka 300 oo ama fa300 diraaci 300 oo dhudhun maxsuubatun mid la xisaabaya weye min aakhiri lmasjidi masjidka dhammaadkiisa ayaa laga xisaabayaa laa min aakhiri musallin fiihi. haddii ay masjid mid ku jiro midna banaanka joogo 300 xisaabteeda waxaan ka bilaabaynaa min aakhiri lmasjidi meesha masjidku ku dhammaado iyo qofkaas aan xisaabayna. haddii safaf badan ay isku sii xigaanna safba saf ka dambeeya laga xisaabayaa. nacam in sallaa haddii uu tukanayo fii culwi daarihi gurigiisa meesha sare murtabidan salaatahu bisalaati limaami asagoo salaadiisa ku xiraya salaada imaamka salaadiisa asagoo salaada imaamka ku xiranaya fi lmasjidi masjidka dhexdiisa kagala xiranaya
oo imaamkii oo masjidka ku jira aninkana gurigiisa korkiisa jooga halkaasuu rabaa imaamka inuu uga xirto qaala shaaficiyu imaam shaafici wuxuu yihi raximahu llahu lam tasixa salaatuhu salaadiisu ma ansaxdo sawan kaana mutaxaadiyeyni am laa wayuwaafiquhu nasuhu fi man salaa biabi qubays bisalaati alimaami fi lmasjid alxaraam cala almanc wasawabahu lisnawiy lakina almuctamada nasuhu alaakhar fi abi qubays cala sixati wain kaana calaa minhu waka tag waaya wuxuu yihi ma ansaxayso marka imaam shaafici wayukrahu waxaa la kahdaa irtifaacu axadihimaa imaamkii maamuumka midkood sarayntiisa la kahdaa cala alaakhari kan kale uu ka sareeyo ligayri xaajatin wax duruufa oo keena iyadoosa jirin wax baahi oo keenta iyadoosa jirin inay kala sareeyaan laakiin haddii xaaja jirto imaamkii wuu dadka meel ka sareydu ku tukanaya salaaduu gaarsiina uu rabaa inuu baro tacliimuba ka wadaho sida nabigu caleyhi salaatu wasalaam mimbarka markuu korayay ee hadba kasoo degayo qahqara uga soo degayay dibdib si ay salaada uga bartaan ama ahane qofkii maamuumka imaamka ka sara mari kara marmaro hadduu mubaliq yaho microphone iyo aysa jirin ee meel dheer uu fuulo codkasuu dadka u gaarsiiyey taasna waa la ogolyahy araabicu shardiga afraad waxaa weeye niyatulqudwati dayashadii inuu niyeysto awiljamaacati jamaaca inuu niyeysto ruuxan waa inuu markuu raacayo imaamka waa inuu ku xirtaa salaada hadduusan ku xiran iska raacraaco ma ansaxayso falow taabaca haddii uu raaco imaamkii bilaa niyatin niya la-aanu iska raacraacay wax niyaba ma laa imaamba aw maca shaki micigiisuu raacay fiiha niyadii uu ku shakiyey waa ku shakisanya inuu iqtada niyeystay ku dayasho inuu niyeystay in kale waaba ku shakisanya batalat salaatuhu salaadiisu waa jabtaa goorma in taala intidaaruhu sugitaankiisu haddii uu dheeraaday oo sugsugitaanka imaamka uu raacayo oo sugsugayo hadday dheer tahay salaadiisu waa jabaysaa ashardu lkhaamisu shardigii shanaad tawaafuqu nadmi salaatayhimaa imaamkii maamuumka labadooda salaadood tixdooda iyo qaabkooda waa inuu iswaafaqaa labada salaadood isku qaab yihiin hadday kala duunaadaan ka waran fain ikhtalafa hadduu kala duunaado nadmigii ka maktuubatin waa salaad farad ahoo kale duhur iyo casr iyo cishe maqrib iyo fajr oo kale weeye wa kusuufin iyo salaad qorax madoobaada oo laba bilood laba rukuuc ama bil madoobaad oo laba rukuuc iyo laba ictidaal leh ismala salaadaas aw janaazatin waa farad iyo janaazo oo waxa weeye duhur iyo janaaza la isku xirtay duhur rukuuc iyo sujuudiga u baahan yahay janaazana mala labadiiba marka khilaafkii nidaamkii salaada waa kala duwan yahay aada u kala duwan yahay lam tasixa alqudwatu dayashada ma ansaxayso salaadahaas la iskuma xiro karo wayasixu waxaa ansaxaya aduhru duhur ayaa ansaxa khalfa alcasri casr gadaashiis waa la isku xiro karaa labadooda mid aqalaa waa la isku xiro karaa waayahay ama jamac qofaa mid jamcinaya walmaqribi maqrib waa gadaashiisa lagu wayasixu waxaa ansaxaya aلظhru khalfa alcasri oo kale khalfa almaqribi ama wlmaqribu waaya aلظhr wlmaqribu maqrib ayaa ansaxaya khalfa alcishaai cishihii gadaashiisa meesha muusa sheegin wakhalfa musali lmaqribi wacagsihi nusqadan nusqooyinka qeybka waxay qorayaan wlmaqribu khalfa alcishaai nuska qorta maqribkeena waa ansaxaa cishaha gadaashiisa lakin nusqadan kale daaru minhaaja wayasixu duhru khalfa alcasri wاlmaqribi duhurki waa ansaxaa casr gadaashiis qof tukanaya lagu xirto yani khalfa musali lcasri casr qofku tukanaya gadaashiis lagu xirto wa khalfa musali lmaqribi maqribkii tukanaya gadaashiis lagu xirto litixaadi wacagsuhu iyo dabagadiskeed oo maqribaa lagu xiro karaa duhur iyo casr litixaadi nadmi nidaamkia iswaafaqay wain ikhtalafaa cadadan waniyatan cadadka iyo tirada haba ku kala tirada iyo niyada haba ku kala duunaadeene qaabkii salaada waa iswaafaqsanya walqadaau qala ayaa ansaxaya khalfa aladaa'i gudasho gadaalkeed iyo cagsulmatni matniga dabagadiskiisna ansaxa oo qof qala tukanaya waa ku xiro karaa qof ada tukanaya oo salaad uu hada gudanaya cagsiguna waa lamidoo qof oo ada tukanaya ku xiro kara qof qala tukanaya qof maqrib tukanaya ku xiro kara qof duhur tukanaya qof casr tukanaya ku xiro kara qof duhur tukanaya kuwaasoo dhan waa ansaxaysa walfardu faradna waa ansaxaa khalfa nafli sunno gadaalkeed sunnadii oo isku nadmiga ahaayeen isku qaabka waa lagu xiro karaa duhurkii oo faradki waa ku xiro kartaa qof raatibo tukanaya waa ku xiro kartaa faradkaaga wa cagsulmatni matniga dabagadiskiisna waa ansaxaaho qof farad tukanaya lagu xiro karaa sunno waa ansaxaysa
الشرط السادس شرطigii لحaad almuwaafaqatu waafaqid weeye fii sunatin suna ay isku khilaafaan imaamkii maamumku sunadaasoo faaxishati lmukhaalafati khilaafkeedu uu xun yahay sunadii hadday ku kala duunaadaan khilaafka uu xumaanayo qaabka kala duunaanayo aada u kala duunaanayo waa in isku waafaqaan tusaale waa kan falow taraka alimaamu imaamku hadduu ka tagay sajdata tilaawati akhriskii sujuudiisii uu ka tegay oo aayaduu akhriyey loo sujuudo imaamkii waa iska dhaafa wasajadahaa sujuudaasna waxaa sujuuday almamuum maamumkaa sujuuday imaamku maadaama aqriyay aayad tilaw maamumna sujuuday salaadiisu waa baadil aw cagsulmatni xasala cagsuhu aa soo xasilo imaamkii aayad uu akriyey aayatu tilaawo ah uu akriyo u sujuuday imaamkii maamumkiina waa iska dhaafa aw amase tarakal imaamu imaamka wuxuu ka tegay atashahuda ataxiyaadka alawale horeeyey imaamkii ataxiyaadka hore waa ka istaagay watashahada almamuum maamumkiina waa ataxiyada waa u fariistay batalat salaatuhu salaadiisu waa jabtaa intaasu jeerba salaadiisu waa jabaysa maxaa shardiga laakiin in calima watacamada wa in laxiqahu cala alqurbi hadduu og yahay una u qastay licuduulihi can fardi lmutaabacati ilaa sunati wuxuu ruuxaasi ka leexday raacitaanka faradkiisii sunna u leexday waxyaalahaas waa kaas waa ka jabaysa wuxuu yiri waa ka tagna wuxuu yiri wain tashahada alimaamu imaamkii ataxiyaada maanta ataxiyaadka hor u fariistay waqaama dhe waqaama alma'muumu ma'muumkiina waa istaagay camdan ku talagal uu istaagay oo kama ahan lam tabtul salaadii ma jabayso wayundab waxaana la suneeya lahu ma'muumkii alcawdu laabasho maanta imaamkii ataxiyaadka hor u fariisto sunnadaha ma'muumkiina waa ka istaagay si ku talagalo uga istaagay salaadu ka jabi mayso laakiin ma'muumka waxaa u fiican istaagana waa farad imaamka raacidiisana waa farad inuu imaamka raacidiisa u laabto aa u fiican ee hadhow lasoo istaago ashardu taasicu ashardu saabicu dhe shardigii toddobaad ee u dambeeyay shuruudaas waxaa weye almutaabacatu raacitaan weye imaamkiisa inuu raacraaco wey marka raacraaco waayo wuxuu yihi fain qaarana hadduu la xiriirsado hu imaamkii haye fi taxarumi xerashada ayuu kula xiriirsaday oo markii salaada xirana isku mar ay ku dhawaaqeen takbiirta batalad salaadii waa jabtaa salaadii maamuumku ka kac weye inta niyeystay ma'muumnimad inuu isla mar la xirto lama ogola way kadaa waxaa lamida in taqadama hadduu hormaro ma'muumkii caleyhi cala alimaami uu ka hormaray biruknayni laba rugni uu kala hormaray ficliyeyni ficil ah laba rugni oo ficil ah uu kala hormaray mathalan ba imaamkii taagan uu inta faatixada dhamaysto ma'muumkii rukuuca waa rukuuca haddana rukuuci kasoo istaagay ictidaal wey istaagaas ictidaalkii ka hoobta imaamka weli taagan xagga salaada waa jabaysa ma'muumka waxaa laba rugnoo dhamaystiran oo markuu ka hoobtay ictidaalka uu kala hormaray aw amase taakhara waa dib dhacay canhu can ilimaami imaamkii maaragta ayuu ka dib dhacay bihimaa biruknayni alficliyeyni labadii rugni oo ficliga ahaa ayuu kala dib maray bikayri cudrin cududaarna ma haysto ayana waa ka jabaysa salaad oo waxa weeye imaamkii adigoo taagan oo faatixadii akriyo wax kasta dhamaystay imaamkii rukuucay haye weli meeshaadiya taagantay imaamku waa soo ictidaalay weli meeshaadiya taagantay ictidaalkii uu imaamku ka hoobta hadduu imaamku ka hoobto ictidaalki adigana sabab a u harta aysan jirin salaadada waa jabtay wain qaarana haddii uu la xiriirsado ma'muumkii hu imaamkii fii kayri taxarumi xirashada dhexde keyrkeed ayuu kula maarata xirashadii takbiiratulixraamka waxa ahayn ayuu kula xiriirsaday aw taqadama ama waa hormaray caleyhi cala alimaami imaamkii ka hormaray birugnin tiiru kala hormaray ficliyin ficil ah oo la qabto rugni ficil ah misal hal rukuuc kala hormaray aw amase taakhara wuu dib maray canhu can ilimaami imaamkii ka dib maray bih birugni lficliyi rugniga tiirka ficilka oo waxa weeye imaamkii aba hortaa rukuuca adoon waxba hayn oo faatixadii wax dhan ku dhamaadeen waana kasoo toosa rukuuca lam yadura intaasoo dhan dhib ma leh intaasoo dhan dhib kuuma geynayso salaada ma jabinayso maadaama hal xabo ay tahay wixii licadami fuxshi lmukhaalafati khilaafkii xumaantiisa yaridiisa weye wayaxrumu waxaa xaaraama taqadumuhu ma'muumka hormaridiisa caleyhi cala alimaami imaamka uu ka hormaro birugnin tiir uu kala hormaro taa ficliyin ee ficil ah rugni ficilhii oo dhamaystiran in ma'muumku imaamka kala hormaro taqadumuhu taqadum lma'muumi caleyhi cala alimaami biruknin ficliyin rugni ficilo wax la sameey ah inuu kala hormaro waa xaaraam oo taam ah masalan ba waa imaamkii oo taagan aada iska rukuucday rukuucdina waa kasoo toosa rugni ficlihi aad kala hormarto dhamaystiran
waa lama ogola salaadu kaa jeebmaysa laakiin waa xaaraana ku dhacdo. aw wain takhallafa haddii uu dib maro ma'muumkii bicudrin cudurdaar haddii uu la dib maro ma'muumkii ayaa maantay imaamkii ka haray ma'muumkii ayaa maantay imaamkii ka haray bicudrin cudurdaaruuna uga haray oo cudurdaarka maxaa ka mid a ka bud'i qiraa'atin akhriskiisa culus waa carab culus iyo faatixadii ayuu ku daha bilaa waswasatin waswaas la-aanna uu ku daha oo ku culusta qiradiisa waswaas la-aan qofka waswaaska maanta hore ku celcelinaya maaha iyo waishtiqaali lma'muumi ma'muumkii oo mashquulay ma'muumkii almuwaafiqi waafaqsanayano imaamka faatixada qadar la akri kara ku xira biducaa liftitaax uu ku mashquulay xiraashada ducadeedii aw rakaca ama waxaa rukuucay imaamkiisii fashaka ma'muumkaas wuxuu ku shakiyey fi lfaatixati faatixadii ku shakiyey faatixadii ma akhriso mise maya waa waajib ina akhrisatay aw tadakara ama wuxuu xusiistay ma'muumkii tarkaa faatixadii inuu ka tagaba oo asagu tiisi uusa akrin waa waajib inuu akriyo aw asraca alimaamu ama imaamka wuxuu dedejiyey qiraa'atahu akhriskiisuu dedejiyey oo imaamka carab fudud intaadan dhammayna uu ka socday cudira waa loo cudurdaaraa ma'muumkaas ilaa halaathati arkaanin rugniya loo saddexa inuu la dib maraa loo cudurdaaraa arkaantaasoo tawiilatin dheer saddex rugniya dheer inuu maaragtay looga cudurdaaraa ilaa cudira waa loo cudurdaaraa ilaa halaathi arkaanin tawiilatin rugniga saddexaad hadduu ka baxo eberwey oo masalan waxa weeye imaamkii adoo taagan oo faatixada u taagan rukuucay waa soo ictidaalay ictidaalka lama xisaabayo sujuudu aaday sujuuddaas waa u xisaabanta iyo rukuuci wuu soo fariistay julus bayna sajidatayn usoo fariistay lama xisaabayo haddana sujuudi kalau gale sujuudda kale markuu kasoo fariisto waa inaad imaamka aad soo dhaqaaqdo arkaantii kale soo bilowdo ama aad meeshuu jooga ugu tagtaa ama aad ka goosataa fain zaada haddii uu ziyaadiyo saddexdii arkaan ay dhaafto maxaa yeele sujuudda kale markuu kasoo dhamaaday saddex rugna waa dhamaystirantay fa in nawaa wuu niyeystaa almufaaraqata ka goosi niyeystaa aw amase waafaqa waa waafaqaahu imaamkii fiima makaan dhexdiisu ku waafaqaa huwa imaamku fiihi makaanka uu ku dhex sugan yahay barta uu joogo ugu tagaa wa ataa waana la yimaadaa ma'muumku birakcatin ragcuu la yimaadaa bacda salaamihi imaamku markii uu salaamo naqsado ka bacdi uu ragco la yimaadaa ma'muumku maxaa yeele ragcadaas dhexe waa ka qasaarta asaga hada kulluhu fi lmuwaafiq haadaa kan oo aan xukumkan aan kasoo sheekaynay oo aan niri qofkii sidaas ayuu imaamka u raacayaa kulluhu dhammaantiis fi lmuwaafiqi imaamka qofka waafaqsanaa wey oo imaamka qofka waafaqsan muxuu yahay kii imaamka waafaqay wawa kaasi man ruux weeye adraka haleelay macal imaam imaamka micigiisa soo gaaray qadra alfaatixati faatixada intii la eg qadar la akri karo macnaha markuu imaamku xirtay iyo marka imaamku uu rukuucay waxaa u dhaxeeyey qadar uu faatixa si sax ah oo degan u akri karo waayahay waa mal masbuuqu ruuxii laga hormaray ee imaamka aan ku xirnayn ragco faatixa intii la akri karo idaa rakaca alimaamu imaamku haddii uu rukuuco fii faatixatihi masbuuqa faatixadiisa dhexdeed asagoo faatixadii ku jira ninkan waa xirtay imaamkiina waa rukuuca fain ishtaqala waa kala qaadaynaa fain ishtaqala hadduu mashquulay bisunatin sunna haddii uu ku mashquulay wadaalika ka ducaai liftitaaxi furfurashada ducadeedii weye oo markii uu salaada galay wuxuu iska aada ducooyinkii lagu furfuranaya mid kamida uu akhriyey aw itacawudi acuudu ayuu ku mashquulay alla magangalkii acuudu ayuu akhriyey qara'a waa akhriyay qara'a alfaatixata faatixadii hadda waa akhriyaa biqadrihaa biqadri ma shtaqala intii uu ku mashquulay in la eg uu faatixada sii akhriya uma markaa bacdigeed intaas markii faatixada uu sii wado in adrakahu imaamka hadduu haleelay fi rukuuc hadduu ku gaaro oo kula xasilo macnaha haleelka waxa weye inuu imaamka rukuuca ku gaaro kulana xasilo adraka waa haleelay arakcata rakcadii wailaa haddii uusan ku gaarin imaamka rukuuca ama waa ku gaaray kulama xasilin faatathu ruuxaas masbuuqa waxaa ka tegay alrakcatu ragcadaas waa ka tagtay wayuwaafiquhu imaamka waana waafaqaaho waa raacaa wayaأtii waana la yimaadaa birakcatin ragca ayuu la yimaadaa bacda salaami imaamihi imaamkiisu markuu salaamo naqsada ka bacdi marka ruuxaani
markii uu imaamkoo salaad kusii jira yimaado qofka waxaa laga rabaa maadaama uusa ogeyn marka uu rukuuci rabayo imaamku marka kale inuu horeyba salaada hadduu ka xirto faatixadii ka gudagalo oo sunnooyinka kale u kaadsado. hadduu sunno ku mashquulo imaamkuna ka hor rukuuco waa inuu intuu sunnada ku mashquulaayo oo kale mashquulsanaayo kale uu faatixada hore usii akhriya. wain lam yashtaqil hadduusan mashquulin bisunnatin sunno kuma mashquulin salaada markuu xirtayba faatixada hore ka bilaabay qataca waa gooyaa alqiraa'ata akhriskii warakaca waana rukuuca macahu imaamka micigiisa. imaamkii ninkan waa ku xirtay markuu ku xirtana faatixada hore u akhriyay laakiin faatixada soo dhexda uga jiraa imaamkii rukuuca isaguna meeshaasu faatixada inta ku joojiyo oo imaamka raacayaa liyudrika arakcata ragcadaas u haleelo. qofkaas marka masbuuqa la yiraahdaa wayataxamalu alimaamu canhu baqiyata alfaatixati aw kulaha in lam yudrikhu ila fi rukuuci fain lam yarkac macahu faatathu rakca bal wabatalat salaatuhu in takhallafa liyukmila alfaatixata ilaa an sharaca alimaamu fi lhuwiyi ila sujuud. faslun fi bayaani idraaki lmasbuuqi lirakcati. fasalkan wuxuu nooga waramayaa qofka masbuuq ah oo laga hormaray sida uu ragco u haleeli karo. waman adraka qofkii haleela alimaama imaamkii almutatahira dahaarada qabay raakican xaal yahay kii rukuucsan qofkii soo gaara oo wadma-ana xasila macahu imaamka micigiisa qabla irtifaacihi inta uusan imaamku soo toosin ka hor la xasila can aqali rukuuci rukuuc inta ugu yar uusa kasoo kor noqon oo kasoo toosin imaamku adraka waa haleelay ruuxaasi alragcata ragcadii waa haleelay. ninkani haddii uu salaadii xirto imaam dahaaro qabana ku xirto asagoo rukuucsan imaamkiina intuusan rukuucaas kasoo toosin ku xasila oo kula xasila intii oo dumaniinada ugu yareedoo subxaana allaahidi ahayd qofkaasi ragcadaas waa haleelay waa u jirtaa. marka waa inaad raka hadduu haleelahu imaamkii fii rukuucin rukuucu ku haleela rukuucaasoo zaa'idin dheeraada. ka waran maantay imaamkii oo ragco dheeraada ku jira rukuuc dheeraad oo qalad ugu jira rukuuc qalad ahoo dheeraadahu gala inta ku shakiyay salaadii aw amase fi thaani rukuuci labaadu ku haleelo min alkhusuufeyni labadii khusuuf ka mida. imaamkani wuxuu tukanaya qorax madoobaad ama bil madoobaad maamuumka laftigiisuna wuxuu tukanaya salaadaasoo kale qoraxda madoobatay ama bishoo madoobaatay laakiin rukuuci labaaduu ku gaaray fi thaani wuxuu ku gaaray fi rukuuci thaani min salaati alkhusuufeyni lam yudrik ma haleelin ragcadaas ma haleelin maxaa yeele rukuuci koobaadna kuma haleelin tan khusuufka tan horena rukuuc xisaabsan kuma haleelin rukuuca zaa'idka uma xisaabsana. faslun fi sifaati ala'immati almustaxaba. tilmaamaha imaamyaalku ay leeyihiin ee sunnada ayaan fasalkan ku baranaynaa. axaqu nnaasi dadka kan ugu xaq badan bilimaamati imaamnimo ugu xaq badan alwaali waa ninkii madaxda ahaa qofka meeshaas taliyaha ka ah oo xukuma imaamnimadka ugu xaqnimo badan fii maxali wilaayati wey dhulka uu ka taliyo. fayataqadamu wuu hormaraa haddii la isku yimaado ow yuqadimu wuu hormariyaa hayrahu qof kale walow fii milki hayrihi qof kale gurigiis haba ahato uu leeyahay xataa haddii dad kale uu u taga madaxda qofka meeshaas ka ahi asagaa hormaraya ama qof hormarinaya. wasaakinu kii deganaa bimilkin milki ku degan oo guriga ninka isagu iskale aw caariyatin ama caariya ku degan oo la dejiyey aw ijaaratin ama kira ku degan aw waqfin ama waqaf ku degan shay la waqfay aw wasiyatin dardaaran ku degan iyo wanaxwihaa madkuuraadaas wixii la mid ah qofkii ku degan waayahay qofkii intaa ku degan yataqadamu waa hormaraa aw yuqadimu waa hormariyaa aydaa intaas qofkii ku degan asagaa hormaroo naftiisa u hormara ama qofuu hormariyaa aydo laabanaya aw yuqadimu hayrahu aydaa sidii waaligii oo kale weeye. ilaa laakiin ana almuciira kan caariyeeyey oo qofkan meesha tobalcaaro ku degan oo yiri gurigan axaqu asagaa ka mudan oo imaamnimadka uga xaq leh min almustaciiri kan caariye qaatay maxaa yeelay kaasi weli gurigii awoodu kusii leeyay mustaciirka waa awood yarye yani almuciiru axaqu biاtaqdiimi waاtaqadum liannahu maalikun lilmanfacati walirujuuci fiiha mataa shaa.
wasayidu sayidkii axaqu ka mudan min cabdihi addoonkiisa aladii kaasoo laysa bimukaatabin aan mid la kitaabay ahayn kasoo tag. walimaamu ahay imaamkii alraatibu ee joogtadaha ama waliana alimaama imaamkii ilaa ana alimaama ana almucirada la socotaa. walimaamu wa ana alimaama imaamkii alraatiba joogtada ahaa axaqu asaga ka mudan min gayri lwaali qofkii taliyaha ahaa oo gobolka meesha xukuma gobernatooraha ka ahaa keyrkiisa saa ka mudan. fayataqadamu imaamka oo hormaraa aw yuqadimu asaga cid kala hormariya. uma markaa bacdeed qudimaha inta kale haddii la waayo dadkii caadi noqdaan qudima waa la hormariyaa. al afqahu kan fiqiga badana la hormariyaa. uma markaa bacdeed haddii fiqiga ay ku sinmaan oo ay isku aqoon ka yihiin al aqra'u kan akhriska badanoo qur-aanka ku fiicana la hormariyaa. uma haddii ay inta kale iskaga mid yihiin al awraacu kan xalaal miiradka badana la hormariyaa. uma haddii ay dhanka kale iskaga mid yihiin inta kale man ruuxa la hormariyaa sabaqa hormaray bilhijrati hijrada ku hormaray huwa asagu aw axadu aabaa'ihi aabayaashiis midkood ku hormaray kasoo tag. uma markaa bacdigeed hadday inta kale iskaga mid yihiin man sabaqa islaamuhu qofkii soo hor islaama la hormariyaa. uma haddii ay inta kale iskaga mid yihiin annasiibu qofka nasabka badana la hormariyaho nasabki oo kafaa'ada aan ku baranay nikaaxa oo maaragtay haashimi iyo mutalibi iyo baqiyatu qoraysh iyo baqiyatu alcarabi loo kala qaadaya halkaasa lagu kala hormariyaa. uma inta kale hadday ka siman yihiin xasanu dikri xuskiisu midka uu fiican yaho yani bulshada ku sumcad fiican dhexdeeda ayaa la hormariya liannahu ahyabu miman bacdahu waalquluubu ilayhi amyalu kaas. uma markaa bacdigeed nadiifu thawbi inta kale hadday ka siman yihiin dharkiisu ku nadaafada badnaayaa la hormariyaa. uma inta kale hadday ka siman yihiin nadiifu lbadani jirkiisu ku nadiif ahaa la hormariyaa. uma wadiibu sancati iyo farsamadiisu kay wanaagsaneed hadday laba xirfadood leeyihiin kii farsamo fiican. uma inta kale hadday ka siman yihiin xasanu sawti codkiisu ku qurxoona la hormariyaa. uma hadday ka siman yihiin dhankaas xasanu suurati muuqaalkiisu ku qurxoon yaha la hormariyaa. fain istawow dhinac walba hadday ka simaanna uqrica waa loo qori ridaa. waa markii imaam raatiba iyo meesha aysa joogina laga hadlaa. haddii markaas aysa ayagu isu tanaasulin waa loo qurceeyaahoo kii ay usoo baxdaa tukiya. walcadlu laakiin kan cadaalada badan oo caadilka ah kan caadilka ah awlaa ka fiican min alfaasiqi faasiqa ka fiican kaasaa cadaalad badan. wain kaana haba ahaado faasiqu afqaha mid fiqhi badan aw amase aqra'a mid akhris badan oo qur-aanka ku fiican haba ahaadee caadilkaa fiican la hormariyo. walbaaliqu kii qaangaarka ahaa ayaa awlaa fiican min asabiyi cunugii cunug yara ka fiican laga hormariyo. wain kaana cunugu haba yar haba ahaado afqaha mid fiqhi badan aw aqra'a mid akhris badan qur-aanka haba ahaadee. walxuru riixu xurkaahaa ayaa awlaa fiican min alcabdi addoonkii ka fiican kasoo tag. wayastawi waxaa siman alcabdu addoonkii alfaqiihu faqiiha iyo walxuru xurkii hayru lfaqiih aan faqiih ahayn aasiman kasoo tag. walmuqiimu ruuxii nagaa ayaa awlaa ka haboon min almusaafiri kan musaafirka ah ka haboon waayahay. wawaladulxalaali cunugii xalaasha ku dhashaa awlaa ka haboon markii imaamnimadka la joogo min waladi zinaa kii aan xalaal ku dhalan. walacmaa indhoolihiina mithlu lbasiiri kan wax arkayay kii oo maaragtay wax arkay walacmaa indhoolihii mithlu lbasiiri kii wax arkayo la mid yahay. maxaa yeeley indhooluhuna khushuucu ku fiican yahay kan wax arkayana nadaafada iyo dahaarada ilaalinteedu ku fiican yahay. markaas haddii marka inta kale ay sinmaan halkaas ku sinmaan. faslun fasalkan wuxuu ka waramayaa fii bacdi sunan almutacaliqati biljamaaca sunooyinka jamaacada ku saabsan qeyb ka mid a. yustaxabu waxaa la sunayaa allaa yaquuma ruuxii inuusa istaagin jamaacada qofkii doonayay ilaa bacda faraaqi liqaamati iqaamada markii laga faaruqo ka bacdi maahane ka hor inuusa istaagina sunna. laakiin dadka maanta qeyb ka mid ihi horeyba sii istaagayaan imaamkii amaan. wayustaxabu waxaa la sunaya taswiyatu sufuufi safafyaalka in la sinaa sunna ah. walamru amar ayaa sunno ah bidaalika arinkaas la faro sufuufkii la simo iyo in dadka la faro inay safafka simaan sunno ah. min alimaami imaamka xaggiisa ayaa aakadu sii fiican imaamkaas sii fadli badan inuu sino isagu. wa afdalu sufuufi safafyaalka waxaa ugu fadli badan alawalu safka hore. falawalu kan hore ayaa sii fadli badan oo lirijaali ragga u sugnaaday. safba safka ka horeya ragga xaggii sii fadli badan. wayukra waxaa la kahdaa oo laga fiican yahay imaamatulfaasiqi kii faasiqa imaamnimadkiisii walaqlafi kii buriye qabka ahaa imaamnimadkiisii wahuwa kaasi alladii kii weye lam yukhtan aan la gudin.
walmubtadici bidcigii imaamnimadkiisiyaa la kahdaa, watamtaami kii ta'da ku celcelinay imaamnimadkiisiyaa la kahdaa, walfa'faa'i kii fa'da ku celcelinay imaamnimadkiisaa la kahdaa, walwa'waa'i kii wowga ku celcelinay imaamnimadkiisaa la kahdaa oo laga fiican yahy waxaas o dhan. waman wuxuu yihi wakadaa sidaasoo kale meeshaan nusqooyin kala duwan yihiin oo wuxuu leeyahay matnigaani waman yalxanu qofkii laxninaya imaamnimadkiisaa la kahdaa bimaa laa yugayiru macnaa, macnaha waxaan bedelayn laxni ah qofkii la imaanaya imaamnimadkiisaa la kahdaa, laakiin haddii uu macnaha bedelayo eber wey. waswaaslowgia lamida imaamnimadkiisaa la kahdaa. waayahay wuxuu yihi wakadaa sidaasoo kale tukrahu la kahdaa aljamaacatu jamaacadii fii masjidin masjid ayaa lagu kahdaa, masjidka lahu uu usugnaaday imaamun imaam raatibun joogto ah. imaam raatiba masaajidkii leh in jamaaca la iskaga oga isagoon ogolaasho laga haysan waa laga fiican yaha, ama salaadii hore aan la tukan. wahuwa masjidkaasina hayru matruuqin walxaal huwa masjidkuna macnaha keewey masjidkaas, walxaal huwa masjidkuna hayru matruuqin mid la maro uusa ahayn, oo masjid yacni meel tuulaa iskaga yaallo cidna aysa soo marin, imaamkiisiiyo oo cida ahayn inay jamaaco ku oogto ayagoo isagoon fasixin waa laga fiican yahay. laakiin masjidka haduu matruuq yaho jamaaco badan dad badan imaanayaan, jamaacadii weyneed imaamkaana hogaaminaya, laakiin jamaacooyin kale waa okay in la sameeyo, ilaa idaa khushiya in laga baqa maahana fawtu fadiilatin fadligoo tago. fawtu fadiilati awali lwaqti waqtiga bilowgiisa fadligii ah tegidiisa in laga baqa maahana, walam yuksha ana laga cabsan fitnatun fitnana aan laga cabsan. oo fadliga jamaacada yani fadligeeda bilowga ah inuu tago hadii laga baqo awalwaqtiga, yani awal waqtiga fadligiisa inuu tago hadii laga baqo jamaacada waa la ogaa isagoo xataa joogin. hadii laga baqo fitnana jamaaco lama ogayo, oo inuu colaad iyo rabsho dhacdo hadii laga baqayana iyo cuqdad jamaaco lama ogayo, kalkaliya loo tukana markaas. wayundab waxaa la suneeya an yajhra alimaamu imaamku inuu la jahro oo kor u qaado bitakbiiri takbiirtii si dadku maqlaan, iyo biqowlihi dhihidiisana uu la jahro samica allahu liman xamidahu, ilaahay waa ajiibaa cidii maaragtay ku mahadisa, wabisalaami salaamtiin inuu la jahro ayaa sunna ah. wayuwaafiquhu imaamka waxaa ku raaca almasbuuqu kii laga hormaray fil adkaari adkaarta wuu ku raacaho waa uu ku waafaqaa adkaarta dhan, hadhow gadaal haba ka dhamaystirtay salaadiisa, laakiin hadda imaamka ayuu raacayaa wax kastaba. wallahu aclam wa axkam.